wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay dad bay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa booglankiyalu si tees dhorow ka fadaas una mabukaniini war wixii buka Allah caafiye qaarka aan bogsoonayn hal budhige noo sheeg adiga maxaa ku haya war ma haysiine maanta tacsiib aad noo taala tacsiib ayeeyo ma odagii baa xijaabtay shaqfir shuruugaa ku raaciye maxaa dhacay hadde war wax ma ogide ayeeyadii qaranka Soomaaliyeed ayaa maanta geeriyootay oo qarankuna ma ayay buu lahaa war marwadii koobaad oo qaranka hooyadeed ayaa xijaabatay sow qaranka ayeeyadiis ma aha jidle walaalin hiray meel una marna waaynay ayeeyada qaranka dhimatay maaha war ayeeyada qaranka magac ma laha miya war waa madaxweynaha sadohdiis war nimayo ninkii Cabdicasiis Xildhibaan ahaa ayaa fayeenka wasaaradda amniga ahaa afka ayuu furtay waxa uu yidhi qorax joogay qurba joogay wax dan ay idima hayso iyagoo boorsooyin wata ayay idin yimaadeen kadibna waa dooratiin waxay idin qabtaanna ma lahan canshuurta idinka aruursadaan akoonna ay ku shubtaan buu yidhi waxa uu yidhi anigana ka mid ahoo carruurtayda waxaa biila boqoradda Ingiriiska xaalka haddii uu xumaado oo dagaal dhacana horay ayaan diyaarad ka raacayaa inta madaxda idin ahna waa ila mid buu yidhaahday waryaa afyaanka beenaha ka sheeganayna dhegayso wuxuu yidhi dumarka isbitaalada la gaarsiin waayay dariiqaday ku dhalaan kuwii kalena suuqa ay ka soo adeegin waayeen carruurtiina dugsida ay tagi waayeen baabuurka wasaaradda arrimaha gudaha iyo tan amniga soo galay xaguu soo maray ayuu yidhi war saraakiishii ciidamada jagboyntiyada jooga waa la xirayni war ma hayside war sarreeyayaashii ama la xiray saraakiisha iska dhaafay brother waxidin baa ku jirtaane war wax qabad kale ma haysay qoladiina waalatay isku meeraysanaysaa wasiirka arrimaha diintii oo qaaftu soo lama bilood in roogna halkii ka hayuubay tolowsay walan jiraan warniyo ama qaraxida ka hortigi waaye maxaa wasiirka diinta ee qaafta qarax ka galay malaha arrimaha xajka weeye war waxa sheegaysi waxba kama jiraan qalbi dhagax anaa dhageystay hadalkiisa dhagaygan ku maqlayay xaflad soo dhaweynaa Nairobi loogu sameeyay wuxuu yiri gaalkacya layga qabtay 3 maalmood baa laygu hayay muqdisho sidii ka daran baa laygula dhaqmay indhaha layga xilay anoo dhibban baa waxa diyaarad lay saaray airport buu yiri faydhabo u malaynaya buu yiri inta layga soo dejiyay malaha sawirra layga qaadanayay buu yiri ayaa halka lay geeyay si ihaana ah oo qaawan baa layla dhaqmay buu goday baa lay geeyay Soomaalida intii xumayd baa dhaantay ku dul qabsato ay igala dhargay buu yiri haddana anoo qalbi dhagaxan qalbiga waxaan iska yiri cid iyo ciirsi toona mali dad Soomaaliyeedna ma jiraan dabadeedna xabsi baa gunta la ii dhigay buu yiri gunta waxa markaa aan ogaaday buu yiri inaan daliya dad baleeyahay markii 30 milyan oo Soomaaliyeed oo ay dhammaan ii wada dhiidinaya caalamka saxaafaduna waliba u goori ugu mahad celiyuriyada xaaladayda taaka shacabka ula socodsiinaysay ayaan waxaan ogaaday buu inaan daliya dad baleeyahay oo ay ilmayga timid oo aan qalbi fayoobaaday markuu hadlayo xafladda soo dhaweentana waxa barbar joogay intii ay dawladdu u taqaaneen inay macaarad yihiin warniyo waxaan ku weydiinayaa haddii ay barbar taagnaayeen heestii barbar ma loo qaaday ayuu ii tuuray barbar war waxaad sheegayso daldalayso ma naqaane cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi maamulada yaryaroo Soomaaliya ka jira oo aanay la fuad dhiibi jireen laakiin weligeed taariikhda dawlad Soomaaliyeed shakhsi Soomaaliya dal kale uma dhiibin waryaalahan qarankii Soomaaliland bur iyo biyo ayuu kala baxay marka bahal qabyaalad la yiraahdo ayaa soo dhex booday oo la doonayo in Soomaaliland lagu kala furfuro marka waxaan ka baqanayaa inaan u kala baxno reer laan iyo reer fulaan iyo reer jeegaaneed iyo reer go'aso iyo reer mirqaanland war beelihii Soomaaliland waa tan lagu heshiisinayo cilaf weyn qaran baanu haynay maxaa qabiilna ka dhigay
iska daa warkaa faraha badan ahawne muuse biixi ninka la yidhaha xilka cirraha isaga wareejiyey war Eritrea iyo Ethiopia heshiis la yaab leh ayaa dhex maray Abiy Ahmed iyo siyaasi Afweekina waa isku ooyeen koonfurta Suudaanna way heshiiyeen labadii madaxweyne Kenyana waa tii Raila Odinga iyo Uhuru Kenyatta heshiiyeen maxaa u diiday biixi inuu farmaajo la heshiiyo war maandheeskow maalin kastaba adinkoo dhahayaan maqlaa Abiy Ahmed waa rage ra'iisul wasaarahayna khayr ayaa ka ragsan eeda nabad iyo nolol aad ku biirto waa ku ogaan war nabad iyo nolol ma qof aan rabin baa jira war dadku waa sidii horta war xisbiga laga hadlayaa qof kasta nabad iyo nolol waa rabaa nabada naas la nuugale war naga tagay ku aragtay nabad naas la nuugale war nimayow cali khaliif iyo khaatume halkay ku dambeeyeen war Puntland iyo Somaliland weydii war siyaasad baydin wareeriso caalamka lama socotaane koobkii adduunka laangaabyo isugu soo hadhay laangaabyo Brazil male Argentina male Portugal male Spain haba sheegin Jarmal aroor horaba Afrika iyo Asia iskaba wada dhigiya America waxa isugu yimi nyaanyow Yurub warne war ma hayside Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa wali harsan waradar Ingiriisku maalin dhow ayuu aqoonsanaya Somaliland ma ka warbahaya war gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa la yiri baarlamaankii koonfur galbeed ayuu furay way baarlamaankii gudoomiyaha looga dhigay eeda labada isaga khaldamay adar baarlamaanka Somaliland idna fursu kuma baahna lamana xidho war nimayo war ma haysaane hadda arki jirteen bajaaj wadooyinka laga xirto magaalada Mandheera 70 bajaaj ayaa aroos lagu galbiyay warniga meeshu qaraxu ka dhacay bajaajyo fara badan oo gubtay baa yaala malaha wiilashii bajaajyada wadayna way ku gubteen marka kuwaana talow majahaadka galay war bajaajleyda $1 dad ku qaadaan war nimayo madaxweyne Farmaajo taasina waa u taala asna waxa uu calay masaaraya Urdugan wariyadu walantee soo ayaan ma aha ninna iil galaya ninna aroos galaya hadalkiina marka la isku soo xooriyo dad waalan hadalkood buu eegyahay ordaayo kala taga meesha warniyo Somaliland waa la waale ayadu way fayoobay kalamaan bilowgeeda alla gabagabo dagaalkeeda ninkii diida waan dakhraynaa يا دخلك